madaxa ururka bisha cas ee degmada Xudun Cabdilaahi Yaasiin oo la hadlayay warbaahinta ayaa xusay baahiyaha dhanka caafimaadka ee ka jira degmada Xudun waxaana uu sheegay in degmada Xudun oo kamid ah degmooyinka ay sii kordhayaan tirada dadka ku dhaqan ay u baahan tahay adeegyo dhanka caafimaadka oo dhameystiran isagoo intaasi raaciyay in degmadu aysan lahayn asbitaal dabooli kara baahida dhanka caafimaad ee ka jirta degmada iyo deegaanada hoos yimaada xaaladda caafimaadka ee degmadu cabashooyin badan ayaa ka jira sanad walba waxaa ku dhinta dumar iyo caruur ma jiraan wax ambalaas ah oo ay maaragtay lagu gaarsiiyo cidtii ku waxyeelooda ilmahaas uu ku qalloocdo lagu gaarsiiyo goob caafimaad deedna waxa weeyaan marka halkaana laga qaado halkoona aan la gaarsiin ayay dhibaato badani ka haysataa dumarkii ama ciyaalkii waxaa laga yaabaa ilmaha halkan laga qaaday inuu ku neef qabato 780 kilomitir oo rafa marka gaari la saaro ama ilmihii ku dhinto uurka hooyada ama iyadii iyo ilmihiiba ay halkaa ay israacaan dhibaato weyn ayaa ka jirta arrintaa waa adagtiina magaalada baaxadda alhi ma leh wax caafimaad ah oo aan ahayn xanaanada carruurta iyo dhallaanka oo aan awood badan lahayn ayaa ka jirta iyadana dhismaheediiba hadeer burbursan yahay waxa weeyaan arrintaas aanu u bandhigaynaa hay'adaha caalamiga iyo ciddii ku shaqo leh in arrintaa aanu ka helo kaalmo xagga caafimaadka ah sida cusbitaal iyo wixii la gudoomiyaha oo ka hadlayay waxqabadka hay'adda bisha cas ee degmada Xudun ayaa waxa uu sheegay in ururka bisha cas ee degmadu uu tabaro u fidiyo dhalinyarada jecel inay ku biiraan bahda caafimaadka isla marhaantaasina ay wax ka qabtaan dhanka nadaafadda deegaanka iyo biyaha la cabayo waxaa ka furan iskuul aanu ardayda ku barno first aid-ka oo difcad maaragtay aanu hadeer waxa weeyaan difcaddii afraad baanu maraynaa waxa weeyaan arday ilaa dhowr iyo 70 ah ayaa maaragtay ka soo baxday waana kuwanina ay u dambeeyaan hadeer fadhiya waxaa kale oo jira distributionkii oo isagu active ah waqtiyaasha uu yimaado maaragtay si baaxad leh uga dhaca hal aan maaragtay xaalado fara badan oo wacyigelin ah oo caafimaadka ah ayaa lagu qabtaa waxaa kaloo aanu ka qaban jiray in aanu biyaha maaragtay caafimaadkooda ka shaqeyno oo aan kaloriintii iyo waxyaalahaas aanu maaragtay aanu ku hawlgelino dhalinyarada biyaha laga cabo kale ee degmada Xudun يعني قابك عاد وش كان كلوريد يعني مدبر كل شيء واحد في رسان إني يعني لعب كروبي لعب كريهين مركز تقدر تعمل كلوريد وحويان وحنا نقدر أنه بشري كامل يفوستوينك أيانو داوينا على شو عنصر وقنا بيها بدن بوها ويران مالنتي وحى كعب بشري إلى شن كنا حالا يا كعب بشري مرة فانا تنان شري وبيها تور شري marka waqtiyadan dambe intii dawlad la'aanta ahaa haba yaraatee waxta ay atiramo aanu helin oo dhameystiran systemkiisii oo dhanina waa isbedelay ceelkiina wuxuu noqday magaalada dhexdeedii waxa weeyaan waxa ku dhawaaday musqulihii dhas badan iyo xashiish badan ayaa ku dhacaya cabitaanka uma fiicna hayeesha anagu waxa weeyaan dadka waxaanu kaloriinta ugu gurnaa jirikaamada iyo foostooyinka iyo berkadaha baraagaha ah oo kale waanu siinaa kaloriinta ayaanu ugu ridnaa laakiin waxa weeyaan caalkan oo kale halka de kalluun baa ku jira mid kale oo maaragtay kalluun fara badan ayaa ku beeran waxa weeyaan isagina waa biyo gooyadiina ku jiraan maaragtay dadkii mar walba ka dhaafanayo aan la xadidi karin inuu saacada xidhnaado oo waqti maaragtay waqti jaanisa aan laga helin
marka sidaa awgeed ceelka anagu si kastoo ahaataba hay-adda bisha cas ayaa ka mid ah hay-adaha farakutiriska ee ka howlgala degmada xudun oo ka tirsan gobolka sool tani wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya waxaana inta badan ay awoodda saaraan dhanka fayadhowrka iyo adeegyada degdega ee dhanka caafimaadka bulshadu uga baahan tahay